Hey, wadani here. Coursigan iyada waxaan rabnaa inaan ku dul marno. Mararka qaarkood waxaa dhacda marka aad samaynayso dropshipping from Amazon ama eBay ama Etsy ama aad meelo fara badan ka samaynayso in ay dhacdo in aad alaabaha aad dropshipping ku samaynayso mid ka mid ah supplierkii in uu alaabtaas alaab aanan saxnayn ama alaab wax ka halaysin inay noqdaan. Okay. So waxaan rabnaa videogan inaan ku cover garayno arrinka asiga ah. waxaa xagga ku arkaynaa all orders alaabaha xagga aan anaga dalabka ku samaynay. waxaa arkaysaan bahladana maalmahan aad u socda. iyagana waxaan ku samaynay dropshipping. marka waxaan leenahay email, waxaan tegaynaa messageka. waxaa arkaysaa one macaamiil ka mid ah oo naga codsaday alaabtan inaan u celino. alaabtan waxaan kusoo qaadnaa 899, waxaan gadaynaa 1678, taasoo noo suurtagelinaysa inaan ka faa'iidno waxaa loo yaqaano kiiba $5. Okay, $5. waagaag xaggaan tegaynaa. macmiilkan xagga asiga waxaa ku qoran magaciisa, waxaa la dhahaa Dixis. emailka ugu horreeya noo soo diro waxaa ahayd emailkan xagga ka muuqda. xagga waxaa ku qoran, waxa uu leeyahay niyahow, I just received my product. alaabtayda haddaan helay and it comes totally crumbled. waxay ahayd mid jajabanba iyada. I thought this was supposed to be the smooth mid yani smooth ah companygan Chelb Silicone like a powder inay tahay wax powder oo kale ah. This is not even the right brand. brandkii runta ma aha. I'm going to have to respectfully ask you to refund the pic. yani waxaan idinka codsanayaa inaad lacagteeda ii soo celisaan. This is a great customer. waa kan oo kale laguma ciyaaro marka uu qofka saan oo kale kula hadlo. respectfully wuu awoodaa inuu furo waxa loo yaqaano resolution case inuu furo. eBay soo dhex gashay ku tiraad hey alaabta ninka saan waxbaa jira, ninkan u celi, maadaama annagaan dropshipping ku samaynayno. so stepka ugu horreeya alaabta idin tusinaa. marka ugu horreysa alaabta waa tan siday noqoto arag. alaabtaasaa loo soo dhiibay jajaban eberka ah. we don't know wax ku dhacay, inay iyada jibisay, inay dhulka kaga dhacday, we don't know. so markuu processka meeshan marayo waxaan samaynay macmiilkii waa reply garaynay. it says you reply this message already. waa xagga kore ku qoran tahay we reply this message. waxaan u reply garaynay xagga wax ku qoran. usually markaa rabti inaad ku reply garayso macmiilka it's just easy. waxaad tusin karaa website meelo fara badan oo laga apply gareeyo. waa kan alaabtaan u dirnay macmiilku isla markii hore kasoo jawaabaya. isla markaa wax u dirno, can someone please contact me, shalay ahayd, you know. so today we responded to him. maantaan uga jawaabnay. waa arkaysaa calaamadaas oo yani noqoshada inaan ka jawaabnay. you have to waxaa u qoran xagga waxaa ka arkaysaa hi Dixie 825 please accept our apology. 2 casho camal dib uga harnay ama 1 casho iyo wax la jira. waxaan ku niri please accept our apology, fadlan naga aqbal raaligelinteennii aan kaa soo daahnay, aan kaaga soo jawaabnay, iyo yani inconvenience yani waxyaabaha shakiga ku geliyey oo expectationkaaga waxyaabihii noqon kari waayey inay ahaadaan naga raali noqo. rest assured waan ku hubinaynaa macmiilka waa la dejiyaa. we are more than happy to replace. waa inaan ku bedelno or inaan ii sheeg aan alaab aan kuu soo celino, fadlan nala socodsii, you know. so immediately way kasoo jawaabsay hi thanks for responding. I'm just going to go with the refund. waxaan rabaa inaad ii soo celisaan lacagteyda. we don't know qofkan inuu weli scam yahay, inuu qof kale yahay ma naqaano, but the way hadda uu communicate gargareynayo waxay u egtahay inuu yahay qof caadi ah. it was absolutely destroyed last night when I opened it the package. markaan last night furay alaabtii way jajabsaneed. marka I don't think that I wanted to replace it at this time. fadlan waqtigaan uma baahan, waa mahadsantahay, ii soo celi alaabteyda. and another email kalaan u dirnay which is qosaysa iyada tan hadda kaga soo jawaabtay. waan ku leenahay no problem, feel free to return it for free. fadlan for free baad ku soo celinaysaa. feel free inaad ku soo celiso si lacag la'aana. we will provide you a shipping level or you can drop it off. waxaad yani ku drop garayn kartaa UPS storada location that close nears you. mid adiga kuu dhow. let us know. so automatically waxay tiri thank you so much. a shipping level will be fine when will be available. okay, so now that's where we exactly are. and waxaan tegi doonaa computer kale, waxaan ka tegaynaa Amazon. waa idin tusin doonaa and from there si aan arrinkan iyada u handle garayno. okay, wagaag, see you next video. wagaagana weli waxaan ku jirnaa sidii processkii alaabtii macmiilku uu rabay in lacagtiisa loo celiyo annagana aan u dirno waxa loo yaqaano recept. xaggan waxaa ka arkaysaan macmiilka nambarkiisa Mary Ann Langford.
waxaa ku qoran macmiilkan alaabta waxay u tagtay aan u dirnay shalayto waxaan leenahay alaabtan aan celinayna waxaan ku dhufanaynaa pagekii loo yaqaanay Amazon aan ku dhufanayna Amazon aan tegayno markaan Amazon tegno waxaan leenahay alaabtii aan tegaynaa meesha aan kasoo galnay orders waxaan raadinaynaa qofkii iyada ahayd qofkan shalay bay alaabta u tagtay order place it kana today qofkan waa qofka alaab kasoo qeyliyay alaabta Mary Ann Longford waxaan leenahay alaabtan return and replace ku dhufanaynaa return and replace waxaan dooranaynaa waxa dhibaatada keena maadaama aan sawirka hayno macmiilka sawir noo soo dhil waxaan aqrinaynaa categoriyadan product baa damage but the shipping was okay Amazon xagga isku difaacay shippingka okay waa productga damage-ka ahaa okay kaasaan ku dhufanaynaa array aan qornaa jirto oo description 200 word inay ka badnaan xagga waxaan ku qornay waxaan leenahay we have a pictures showing the product crumpled inay alaabta isku jabtay which is supposed to be smooth chill up alaabtan chill up la yiraahdo inay noqoto oo silicone powder like a powder inay ahaato sidii alaab meesha ku dhegan oo powder we are very disappointed and we want our full refund okay we want complete refund intaasaan u qoraynaa and from there waxaan leenahay next continue okay xaggaasaan ku dhufanaysaa continue so Amazon waxay ku weydiin doontaa refund waxaad uga baahan tahay in Amazon kaarkooda lagugu soo diro mise kaarka annaga aan meesha gelinay in lagu soo diro kaarkaasaan dooranayna waxaan leenahay continue so optionnay xaggan soo gelinaysaa ku leedahay drop garee UPS posted ana pick up gareyso iyo ama haddaad UPS post aad ku celinaysid wixii kalaan fiirin US pickup box needed haddaad US pickup lacaga laga qaadaa marka annaga waxaan iska dooranaynaa UPS drop off box and level needed kanaan dooranayna dhexe waxaan u diri doonaa macmiilka waxa loo yaqaano waxaan u diraynaa waxa loo yaqaano link ay kaga alaabta kaga print garaysanayso meesha loo yaqaano UPS so sidaa la aligid macmiilka markuu alaabtan Amazon u tagta anagana waa naloo soo celin laakiin make sure marka uu macmiilkan u dirto ka hor inaad hadduu macmiilka fiican yahay ka hor ii sheeg refund garee si hasa dhow complain kugu samayn okay right now waxaan leenahay confirm linkiga annaga emailka noogu soo dhacaya laakiin waxaan u diri doonaa macmiilka waxaan leenahay alaabtan xagga ku celi return labelkan eegayna magaca qofka ku qoran which is bring your item waa print gareyna return labelka waxaa ku qoran qofka Marine Lake qofka ka timid RS macmiilka ma fahmi karo meel wax u socdaan markaa kan u dirto okay wagaag waa anagoo waxaa samaynayno haddaan samaynayna anagoo weli kujidiko meesha ku jira email copy of label email ku dirso copy of labelkan yep e-wire soo dir baan leenahay so email lagu soo diray then after markaan helo I will make a couple changes so wagaag waxaan u diraynaa macmiilkian labelkan u diraynaa si aan so waa saana ku samaynaysaa marka ii sheeg markaad intaan dhan samayso and then you go from here macmiilkaad u diraysaa waxaan tusin doonaa anagoo macmiilka u diraynaa see you next video wagaag macmiilkian xoogaa yar qoraal xaggan ugu qornaan leenahay please look the attachment iska make sure ingiriiskaaga look the attachment of look the attachment of the UPS okay of the UPS label for returning okay usually if they question you hadday su-aal ku weydiiyaan adresskan muxuu ahaa meesha naga soo galay bla bla waxaad u isticmaali doontaa farqi kale oo aad ku leedahay so now waxaa leedahay send messageka u diraysaa and then from there macmiilka alaabtuu soo celinaya and then that's it okay that's how you solve waxaan u dirnay ibahadhow arkaysaa haddana automatically maba sii sugaayo tomorrow markaan soo noqdo lacagteeda aan u celinaya without no question
Okay, so that's how it is. أنا 10 كان 10 كده.